بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waxaan salaamayaa jaaliyadda reer Somaliland ee degan dalka Sweden gaar ahaan magaalada Norrköping. marka labaad Ilaahay baa mahad leh inoo suurtageliyay inaynu maanta u dabaaldegno munaasabadan 18 May oo ah mid dadka reer Somaliland aad qaali ugu ah. munaasabadu waxay ku fadhidaa laba arrimood oo aad iyo aad u qiimo badan. mid waxa weeye dib u heshiisiintii dhex martay beelaha reer Somaliland markii ay sanam ku guuleysatay Ilaahay ku guuleeyay inay dalka qabtaan. xabad joojintii Berbera ayaa lagu shiray beelahoo dhan isugu yimaadeen reer Somaliland bishii February. halkaasaa lagu kala saxaxday waxaana lagu ballamay in Burco la isugu yimaado bisha May. shirka qiimihiisu wuxuu ahaa beelihii reer Somaliland oo dhan kuwa ku jira SNM iyo kuwa aan ku jirinba way ka soo qayb galeen. dalka qabaa'il islaynaya ma jirin ee waxay siyaasaddii dictatorka inuu dadka iska hor keeno walaalaha ah oo uu qayb iyo xukun siyaasaddii loo odhan jiray ku isticmaalo. dareenkaasi uu ku jiray dadkii halgamayay inay marka dalka ay tagaan walaalahood nabad ay la qaataan. waa shirkii ugu horreeyey ee dib u heshiisiineed ee ugu qiimo badan ee dalka Somaliland ka dhaca. wuxuu bilaabay 27 bishii April wuxuuna ku dhamaaday 18 May. halkaasoo beelihii heshiiyeen markay heshiiyeenna ay talo midaysan ugu wada dhawaaqeen inay la soo noqdaan gobonnimadii 60kii luntay ee sida caadifadaysan ee aan cilmiga ku dhisnayn aynu ugu tuurnay koonfur. markii Somaliland gobonnimadeedii hanatay dowladda Ingiriiska hanatay 1960kii bishii 26 June ay 4 cisho dabadeed iyadoo himilo Soomaali weyn la leeyahay xamar loogu biiray ee jamhuuriyadda Soomaaliya la dhisay. dadka reer Somaliland Soomaali jacayl bay ka ahayd waxaana u jeedeen shanta Soomaaliyeed inay horseed u noqdaan. Djibouti ka mid ahayd, kilka shanaad baa ka mid ahayd, Ethiopia, Kenya ka mid ahayd. sida imika oo haystaana maaha Soomaali weyn ma ahayn, xamar iyo Muqdisho ma ahayn, shantaasay ahayd. wax Soomaali intay u hortayna ma jirin reer Somaliland. midtaasay ahayd oo la soo noqoshadii iyo in qarannimadii Somaliland laga soo noqday tii 60kii berigaa luntay iyo halkaa lagu gaadhay oo beelihii ku wada gaadheen iyagoo wada jir gacmaha isku wada haysta. xukuumadna halkaa tii ugu horreysay Allah u naxariistay ee marxuumkii Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo madaxweyne ka noqday. madaxweyne ku-xigeenna waxaa ka noqday Xasan Ciise Jaamac. mid waa dib u heshiisiinta waa munaasabadda eedhiin ay leedahay maalintaasi iyo gobonnimadii oo lagu dhawaaqay in qarannimadii Somaliland 60kii lala soo noqday. labada arrimoodba way ku fadhidaa munaasabadaasi oo qiimaha intaa leeg ayay leedahay. Ilaah baa guusha bixiya. horseed waxaa ka ahaa ururkii SNM oo halgankii shacbiga ahaa galay ee ummadiisu ay taageero buuxda ku siisay dagaaladii iyagoo aan waxba la hadhin. markii dadka lagula kacay xukunkii faasidka ahaa ee faashiga ahaa kula kacay xasuuq burburin dalka la burburiyo ummadoo loo cagajugleeyo xorriyadoo la iska qaado xuquuqdii aadamaha oo lagu xadgudbo iyay halgankaa SNM ka dhashay. ilaahay baana guushii
ku gaarsiiyo kuwa taa 18 May ay noqotay maalintii la xoreeyay dalka, maalintii gobonimada lala soo noqday, iyo maalintii ay beeluhu walaalaha ay heshiiyeen. intaaba way xambaarsan tahay. maxaase lagu soo gaadhay 18 May? 18 May waxaa lagu soo gaadhay halgan dheer ka bacdi oo muddo 10 sano ka yar aan ka yarayn socday, oo naf iyo maalba loo huray. ururka dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed SNM oo horseed ka ahaa, isagoo dadweynihiisu ay hiil iyo hooba la ag joogaan. guushu 18 May saasay ku timi. dhibtaasaa loo soo maray, mid ciyaar ku timi ma aha. Somaliland 18 May dabadeed wax badan baa u qabsoomay. waxaa hor yaallay dhibaatooyin fara badan. waxaa hor yaallay in maleeshiyaadkii dagaalka soo gala hubka laga dhigo. waxaa hor yaallay in dib u heshiisiintii dalka lasii wado. waxaa hor yaallay dhaqaalihii burburay in dib loo kabo oo loo aasaaso, iyo infrastructurekii dalka oo dhinac walba ka burburay, dhinac tacliimeed, dhinac dhaqaale, dhinac ganacsi, si walba u baaba'sanaa. hawsha intaa leeg yaa kusoo muruxsatay dowladdii curdinka ahayd ee 1991 halkaa lagu aasaasay, lagu unkay. 2 sanadood markii xukunkaasi jiray, say doonta haw dhacdee, iyadoona wax badan aanay qabsoomin runtii, yaa shirkii boorama lagu ballamay 1993 taasoo lagu sii xoojiyey in beelihii nabadgelyadii sii dhammaystirtaan, oo lagu gabagabeeyey dib u heshiisiintii. dowladna halkaa lagu soo dhisay. allahuna xuseen marxuumkii maxamed xaaji ibraahim cigaalo madaxweyne ka ahaa, cabdiraxmaan cali faaraxna madaxweyne ku-xigeen loogu doortay. cahdi qarabeed baa halkaa lagu sameeyey, ku-meel gaadha ilaa inta dastuur laga gaarayo. shan sano dabadeed 1997 ayaa la bilaabay in muxuu ahaa sidii loo qabaqaabin lahaa afti dastuur dalka ka dhacda. waa loo howlgalay. xukuumaddaasi hubka dhigistii iyo muxuu ahaa wixii oo dhami wax way ka qabatay. qarannimada Somaliland iibinteedii dibaddana hawl badan bay ka geysatay. waxaa lagu soo gaadhay marxaladda maanta aan marayno xukuumado fara badan oo allahu naxariistay marxuumkii markuu geeriyoodo cigaal, markuu dastuurkii sameeyey ee uu dastuurkii hirgalay ee aftidiisii la qaaday ee 97% dadku u codeeyeen gooni-isutaanka Somaliland. gaaridiisii ka bacdi dowladdii rayaalaha timi, iyaduna howlo badan bay qabatay. ictiraafkii Somaliland bay raadisay, meelo badan u martay. qarannimadu saas weeyaanoo marba xukuumad baa timaada. dimuqraadiyadii tubteedii baa cagaha la saaray. 5 doorashaa la qabtay ilaa imika. dowladda nimanka ugu dambeysay axmed maxamed maxamuud sinaayo madaxda ka yahay, madaxweynaha ka yahay, iyo dowladdii ugu dambeysay oo 3 sano ka hor doorasho xor oo xalaala lagu doortay, oo bedeshay si habsami ahna u bedeshay peaceful transfer of power dowladdii Daahir Rayaale Kaahin, madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin. waxaan uga socdaa halkaa ilaa imika 22 sanadood baa laga joogaa maalintii lagu dhawaaqay 18 May munaasabadan imika aynu dabaaldegayno.
weli qarannimadii somaliland cid ictiraafsani oo dawladahi ma jiraan, laakiin waxa weeye innakaas ictiraafsan. qofkii joogay baa arkaya 22 sanadood wax weyn baa la qabsaday oo aan la malayn karayn. waxbarashadii baa kor loo qaaday, jaamacadaa la sameeyey, dalku warshadu u yeeshay. haddii eeba idankeeda leeyahay wax badan baa u kordhay, laakiin weli ictiraafkii lama hayo. duruufo badan oo hortaagan baa jira. waxaase loo baahan yahay in loo adkaysto oo loo dhabar adaygo, oo sidii halganka dheer loogu soo galay in la dhaliyo maalinta ah oo xorriyadda lasoo ceshado, loona dul qaato inta laga helayo ictiraafka nin keliya iyo dawladda laguma hadleeyo. jaaliyadaha dibadda waa looga baahan yahay inay dhinacooda ka dadaalaan, guda iyo dibadba reer somaliland meelu joogaba inay ku hawlanaadaan sidii loo heli lahaa ictiraafka. hadday qaadanayso muddadu dheeraanayso, insha allahu inay inoo dhawaataan ilaahay ka rajaynaynaa. haddii aynu nabadgelyada sidan usii wadno, dalka horumarkiisa aynu sidaa usii hayno, ummadda reer somaliland wadajir dibad iyo gudaba ay gacmaha isqabsato oo khilaafaadka dhexdeedii waxaa muxuu ahaa dhinac iska dhigto, waxaan ilaahay ka rajeynayaa inay wax degdeg wax badan inoogu qabsoomaan. dadka iyaga halka jooga sidaan horeyba ugu soo dadaalnay iyaanu ku dadaali doonaa inaanu idinku sii sidno intaydin dalka kusoo noqonaysaan. dalka malaayiin lacag kula soo noqon maysaan oo dollar ah, oo lacag meel taabtaallood soo ururinaysaan ma jirto. caqli kula soo noqda, idinkoo waxbartay soo noqda, maskaxdiina oo buuxda soo noqda. taasaa dalka iyo dadka wuxuu faa'iido u leh. waan idin ducaynayaa. waxaan leeyahay ilaahay munaasabadaha soo socda hayna gaadhsiiyo innakii oo inta ka wanaagsan, oo laga yaabo sanadka dambe ama ka labaad kay doonta ahaatee, innagii oo madax banaan oo qaran madax banaan ah inaynu istahneedeyno, in ishambaliyeyno. taas sidaasaan ka leeyahay. ta kale waxaan leeyahay dadkiina dibadda joogi, walaalayaal iska ilaaliya khilaafaadka. dad wax wada wadaagaad tihiin. somaliland min low yacaddo ilaa halka ugu dambaysa ee boosaaso dusheeda ah ilaa garowe agteeda ummad walaala aad tihiin oo wax walba wadaaga, oo aan sinaba u kala maarmayn, sinaba u kala guurayn, sinaba u kala tegeyn. waxaan la jecelnahay inay meel uga soo wada jeesataan ilaalinta dalkiina iyo nabad ku wada noolaashaha dadkiina, oo ah khilaafka intaa yarayn kartaan yaraysaan. waxaan leeyahay awlaadda ilaahay idin barakeeyo. qurbaha aada joogtaanna allaha idinku nabad yeelo oo idinku asturo. ilaahayna ha idinka dhigo kuwii dalkooda iyo dadkooda anfaca. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.